macallinku waxa uu gidaarka ka akhrinayaa raadadka taariikheed ee ku dhigan derbi la dhisay 64 sano ka hor. waa iskuulka Dayaxa oo ku yaal gobolka Sanaag, kaasi oo mar dhulkan u ahaa il waxbarasho oo lama jeerto. Dayaxa horta waxa dhisay dawladda gumaysiga ahayd ee waqtigii isticmaalka Somaliland Protectorate ayaa waxa dhisay dawladda Ingiriiska ayaa dhistay. wuxuu dhismaysu dhamaaday 1957 saddex sano ka hor markii xornimada uu qaatay waqooyiga Soomaaliya. 1958 ilaa 73 oo uu ahaa hooy iyo waxbarasho waxa wax ka dhigan jiray ragga oo kaliya. kadibna waxa iskoolkan Somaliland dib u hawlgelisay sanadkii 2016. wuxuu sekii hore kaga duwan yahay in uu u furan yahay lab iyo dhadigba oo waliba 50% laga rabo in gabdhuhu wax ku bartaan. oo kii hore kaga duwan kuwii hore waxa ahayn all boys kidii waxa ahayn inamo kan waa co-education waxa weeye wiilal iyo gabdho ayaa wada dhigta. meesha 40 kilomitir u jirta Ergaabo magaalada weyn waxa wada dhigta arday hablo iyo wiilala oo laakiin kala qaybsan hurdadu kala qaybsan tahay waxbarashada se kalaaska sheer gareeya kitchenku kala qaybsan yahay. marka waxa ku jira waxa loogu talagalay inuu ay wax ku bartaan ilaa 240 arday oo 50% ay noqonayaan gabdho, laakiin gabdhuhu way ka yar yihiin inamada. waa dawli sidii uu waligiiba u ahaa, waxaana dhaqaalaha iskuulkan lagu dhisay ka yimi sanduuqa horumarinta Somaliland SDF. socodsiinta hawlihiisuna waa tuu ku jirta miisaaniyadda meel martay. iskuulkan hadda aynu joogno waxa ku jira number arday aad u badan, in ka badan 200 arday isugu jira wiilal iyo gabdhaba. waxa ka baxay ku dhawaad 160 hore baa ka baxo laba lood isugu jira oo aan kuwa aan tuulooyinka colaado ka dhaceen oo kale tusaalahan loodadka ugu horeeyo kale ceelfeen ba majority marka burburku ka dhacay dagaaladu ka dhacay laga soo qaado wax la baray. marka haddana waxa ku jira 160 kaasuna waa ka baxeen, haddana in ka badan 200 oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira way ka soo baxeen. ardayda wax fee oo laga qaada ma jirto, qof walbana wuxuu helayaa cuntadiisa oo dhameystiran, waxbarashadiisa oo dhameystiran, agabkiisa waxbarasho oo dhameystiran. 100% waxa uu maalgelisay oo ardayda ka wada bixisa haday staafka noqon lahayd iyo hadii dhaqaalaha ardayda ku baxayay baahan lahayd dawladda Somaliland. miisaaniyadda dawladda Jamhuuriyadda Somaliland ayay ku jirtaa. dugsiga Dayaxa waxa uu ku yaal dhul buuraley ah oo togaga ka dilaaca biyo jira leeyihiin. Erigaabana 24 kilomitir ayuu ka xigaa dhanka waqooyi. Maxamed Xasan Dhalo, Erigaabo.